هاي دالتو دول كبا وذا نور ساي برتوم مغوشي ووبا نربلوي يعني نوادي بيعكو هوري بان ودحيال الرئيسي حمدوا لما يستير عن البلو هاي حمدوا لما يستير عن البلو هاي run ahaantii goobtani waa goob aad iyo aad u qurux badan. Waxaan dalxiis ka tagay Friendship Park oo ku taala caasimadda Addis Ababa ee Ethiopia. Wuxuu noqon doonaa vlogii ugu horeeyay aan ka soo duubo Addis Ababa intii aan joogay. Muddo waxaan ku suganahay dhowr sano ah ilaa 2 sano. Jawiga Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa ayaa ah mid markasta cimiladiisu ay aad iyo aad u degan tahay, qabow ama se roob markasta da'aya. Goobtan magaceedu waxaa la yiraahdaa Friendship Park. Haddii aad ka heshay oo ku sugan tahay Addis Ababa, hore u qabo sababtoo waa meel aad iyo aad jawigeedu u macaan yahay. Soo dhawow daawade, haddii aanad hore noola joogin fadlan subscribe dhanka YouTube-ka Nadara Saciid. Haddii aad naga daawanaysid dhanka Facebook page-kana nagu soo beer. Sidoo kalena muuqaalkan ha ka ilaawin adigoo xaqiisa siinaya inaad like saarto. Ethiopia waa dal aan bad lahayn oo ku yaala bariga qaaradda Afrika. Magaala madaxda caasimadda Ethiopia waxaa loo yaqaanaa Addis Ababa oo macnaheedu ay tahay ubaxii cusbaa. Ethiopia waxaa ku nool in ka badan 80 qowmiyadood oo qowmiyad kastaaba waxay gaar u leedahay luqad iyo dhaqan u gooniya. Ethiopia waxaa lagu tilmaamaa inay tahay hoyga wada noolaanshaha iyo kala duwanaanshaha. Waxaa la yaab leh oo Ethiopia leedahay sanad u gooniya kaasoo ka kooban 13 bilood oo welibana bisha ugu dambaysa ay ku dhamaato ilaa 6 cisho 5 cisho. Sidoo kale 7 sano ay ka dambeeyaan adduunka taariikhda miilaadiga marka loo eego ee reer galbeedka. Waqti xaadirkan waxay ku jiraan sanadkii 14aad amba 2014kii. waxyaabaha Ethiopia ka mamnuuca ah ama se aan laga isticmaalin waxaa kamid ah dollarka. haba yaraatee Ethiopia lagama isticmaalo dollar, only waxa laga isticmaalaa lacagtooda birta ah. Aanu soo noqdo goobtan quruxda badan la daawanaysaan, magaceeda san hore idinku soo sheegay waxa la yiraahdaa Friendship Park. Badanaa goobtan waxa yimaada dadka lamaanayaasha ah, sidoo kalena waxa lagu dhigaa aroosyada. runtii meeshani aad iyo aad bay u weyn tahay. waxay leedahay goobo laga cunteeyo oo restaurant ah. xaqiiqatan dadka Ethiopiaanka waa dad jecel wadankooda. Addis Ababa markaad soo dhexgashid oo aragtid meel kasta waxa ka wada socda dhismo. waa magaalo soo dhismaysa runtii oo dhisantayba. inagana wadankeena saas ayaa laynooga baahan yahay in laynoo soo dalxiis tago, sidoo kalena aynu dhisano. waad ku mahadsantahay daawada. haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan, fadlan ha ka ilaawin inaad like saarto, sidoo kalena asxaabtaada la wadaagtid adigoo share garaynaya. waa anigoo ah Nadara Saciid. wixii fikir iyo tusaale ah nagula wadaag dhanka commentiga. haddii aad jeclaysan lahayd goobo kale oo aad sababo ku taala inaan muuqaal sidan oo kale ka soo duubana, fadlan commentiga igula wadaag fikirkaaga. مدو تعيد ياي وحان دالكي ورفاك متيسين هلو مدو قلبي كيبو راي محان ورد جعيل متي وحياها تاريكو محان قلبي كيكوسي جليسي مرتي ذرتحي ليلك توسي ميسان كجعيل فولي محان دالكي ورفاك ما ويلي انت جليسي مرتي ذرتحي ليلك توسي ميسان كجعيل فولي